saddex casho ayaad haysataa saddex casho wixii ka dambeeya ninka liibiyaanka ah wuxuu ballan ku qaaday wiilkaas inuu iibsanayo ama inuu kaliyaha kala baxayo sida uu dhaqsiya badan jawaabta adkeeyay jirtaa marka in la sii iibsado lacag ka dheer oo lacag ka badan aad ka bixisaan in labada kaliyada laga bixiyo dib loo kaliyihiisa la iibsado hadaba caafimaadkiina adinkooda jira waa adinka dhashan Ayatullahi Shukri Bile waa wiil 15 sano jir ah kuna dhashay magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wuxuuna ahaa fasalka saddexaad ee dugsiga sare waxaa la waayay bishii January ee sanadkan waqtiga fasaxa dugsiyada dalka Kenya hooyo Maryan Cabdi Cali waa hooyada dhashay Ayatullahi Shukri Bile waxay sheegtay in wiilkeeda laga waday magaalada caasimadda ah ee wadanka Kenya ee Nairobi isla markaana haatan uu magafe la soo hadlay loona sheegay in wiilkeeda lagu hayo Liibiya lagana rabo lacag dhan $10,000 una dhiganto 1 milyan oo lacagta dalka Kenya haddii lacagtaasi ay keeni waysana waxaa loo sheegay in wiilkeeda la dili doono hooyo Maryan ayaa muslimiinta meel walba ay caalamka ka joogaan ka codsatay in laga caawiyo sidii wiilkeeda looga soo dayn lahaa magafaha haysto ayadoona sheegtay inaysan awood u lahayn lacagta uu magafaha ka codsaday muslimka islaameed oo dhan oo Ilaahay walaalahay waxaan ka codsanayaa wiil yar oo aniga dhalay oo yar oo 15 sano kali jiro ayaga dhibaataysan oo agoon ah Liibiya la iga haystaa lacag 1 milyan la igu sheegtay ma haysto anaaba guri kodkoto oo dadley oo maxay aheeday boos reeb ku jira waxaan u haayo ma jirto aaday dhaxda laga duubsaday balaayo ama dhaxda ka qabsatay cunugi waan waayay telefoon walba dir meel kasta ka raadi meel kasta u doon meel kasta qaxootiyaha la hadal meel kale oo ay disdegan la hadal meel kasta la hadal cunugi ma jiraa waan waaynay markaan waayna cunugii aan joogno sujay bil iyo bar oo Liibiya nagala la soo hadlay asagoo dilan xabad ku jirto ooynaayo codkiisa laciif uu yahay ali soo wacay amin qamiis ah ano markaas iida dartiis intaan u soomay afuray galbiga la soo hadlay waa liiga sugaa hatta iskuulka intaas oo sanada liigu leeyahay lacagtiisa foomtu intuu galo dhan waxaan geeyay lacagta waa yartaba liigu leeyahay ilaa hadda meel aan oo keenan waayay ano sidii oo maxay ahayd cunug iska tagay oo ilmo kale iska duubsadeen iyo balaayo kale oo meelaha oo gacan haadisay muslimiinta walaalahay waxaan ka codsanayaa dal iyo duwa caalamka oo dhan in ay caawiyaan shacabka ku dhaqan ismaamulka Garissa ayaa waxa ugub ku ah dhacdooyinka la xiriiro tahriibka ayadoona haatan ay bilaabeen dhalinyarada ismaamulka Garissa inay tahriibaan